طبعا ku bilaabo qaybtii afraad wararka wacala dhinaca dunaasiyada waa Janaayo 2022 oo mar kale wararkii dunida warbixin dhinaca dunaasiyada ee gudoomiyaha African Union Commission gudiga Afrika ninka gudoomiyaha Musa Faqi Mohamed ayaa warqad u soo diray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha wuxuu kaga codsaday in ay dejiyaan xaaladda isla markaana ay dalka u sii ambaqaadaan arrinta dhinaca doorashooyinka iyo in ay arrimaha xiisadda waddanka ka taagan ay dejiyaan talooyin iyo nasteexooyin ayuu ku siiyay in dhinacyada looga baahan yahay Soomaalida inay doorkooda ka qaataan arrintaasi waxa uu sheegay in ay muhiim ay tahay in xoog oo dhan isugu geeyo in xaaladda lagu dabaalo nabadgelyo iyo xasilooni iyo sidoo kale iyadoo loo taliyo dadka Soomaaliyeed iyagoo uu sheegay in dawladda Soomaaliya horey loo sii ambaqaad iyo waliba hogaamin ay doonayso dalka Suudaan qaar ka mid ah saraakiishii waaxda caafimaadka dalkaasi ayaa isxasilay kadib markii ay sheegeen inay soo bateen toogashada ciidamada ay ku sameynayaan dadka banaanbaxaya 53 qof ayaa la toogtay 25 bishii Oktoobar ee ka dhacday dalkaasi weerar dhinaca markaasi afgembiga oo militarigu ay ku sameeyeen xukuumadii rayidka ahayd si kastaba ha noqotee dawladda dalka Suudaan ayaa waxa ay wajahaysaa cadaadis xooggan ra'iisul wasaare Abdalla Hamdok ayaa waxa uu ka digayaa inuu isxasili doono haddii aan la heshiin dadka markaasi uu ku tilmaamay inay muhiim u yihiin dawladnimada iyo dalkaba Russia waxay tijaabisay gantaal yaab leh oo kale iyadoo sheegtay in noocan gantaalkan uu laba nooc ka dhaco gantaalkan ayaa ku tilmaamay inuu yahay nooca cusub ee loo yaqaano T-Saricon kaasoo ay ku sheegeen inuu nooca hypersonic uu yahay laakiinse ay markii ugu horeysay ay laba markab ka kala rideen isagoo cruise missile ah ayay waxay ka soo rideen markab nooca loo yaqaano frigate isagoo badda dusheeda taagan halka mid kalena ay ka rideen submarine isaguna badda hoosteeda jooga sida ay sheegayso Interfax ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Russia uu ku dul qoray warbixinta waxa loogu yeeray fariinta sanadka taasoo uu sheegay inay tahay jawaab kale oo la diray sanadkii 2018 ayaa dalkaas wuxuu ku dhawaaqay habsan u socodka iyo oodka iyo farkajarista habka cusub ee gantaalaha hypersonic gaar ahaan T-Saricon iyo Saricon hadda waxa la sheegay inuu yahay noocii ugu ballaarnaa waxaana lagu tilmaamay in uu 10 uu yahay gantaalkii tobnaad ee wajiga cusub tan iyo sanadkii 2018 dawladda Mareykanka ayaa dhawaan waxay amar ku siisay waaxaha dhinaca sameynta qalabka militariga inay sameeyaan habkii laga hortagi lahaa hadii gantaalaha hypersonic ee dalalka Shiinaha iyo Ruushku la soo ifbaxayaan dalka Shiinaha ayaa la sheegay isagu ilaa hadda inuu ka faano horeeyo qaar ka mid ah dalalka Mareykanka ku jiro markay noqoto gantaalaha dhinaca hypersonic arrintan ayuu madaxweynaha dalka Russia oo ku tilmaamay mid ciyaarta wax ka bedelaysa wuxuu ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo uu sheegay inay kor u qaadaso wuxuu ugu yeeray substantial step wuxuu yiri waa tallaabo dhinaca markaasi loo qaaday ayuu yiri difaacista dalka Russia oo uu sheegay inay tahay muhiimad iyo aad mid u weyn waxaana arrintan ay keenaysaa yeli loolan aad dhanka kale waxa laga baqayaa wadnaha farta lagaga hayaa dagaal ay Ukraine ku dhufato dawladda Moscow ayaa ka digaysa in waqtigu iskurayo haddii dalka reer galbeedku ay diidaan talooyinka iyo waliba waxay ugu yeereen markaasi soo jeedinahooda inay qaadi karaan dagaal sanjabis wasiirkaas arrimaha dibadda dalkaasi Sergey Lavrov ayaa gorsii horeysay wuxuu sheegay inay meesha ka saarayaan oo ay ka baabiinayaan khatarta ka soo yururtay ka soo eegaysa dhinaca galbeed ee dalkooda gaar ahaan wuxuu yiri badda madow bilyaneerka Elon Musk ee shirkadda Tesla madaxda ka waa shirkadda dhinaca baabuurta electronic ku shaqeysa ayaa wuxuu sheegay in 200 oo kun oo gaari oo dalka Shiinaha ka shaqeeya laga wata loo yeeri doono kadib markii lagu arkay cilad ku aadan dhinaca ayaa la yiri furka dambe iyo furka hore ama dabada tanka iyo hoodka meesha loo yaqaano iyo kawarka waxa uu sheegay intani ay keentay shilal aad u badan dhowr jeer maadaama mararka qaarkood la sheegay in dabadu furmayso ama waxa la xagga hore dhinaca kawarka loo yaqaano oo dadka ku soo furmaya taasoo halis aad u weyn keenaysa waxay sheegeen in arrintaasi ka shaqeyn doonaan hagaajinteeda iyo cilad bixinteeda wuxuuna sheegay in lacag la noqon doonto arrintan ayuu ku tilmaamay in dib sax lagu sameeyo doono shirkadda Tesla ninkan waa ninka ugu dhaqaalaha badan dunida dhawaana waxa uu sheegay in uu iibiyay qayb kamid ah lacagtiisii sheerkii saamigiisii kadib markii uu tilmaamay inuu saas u yeelay inuu dhimo lacagta xawliga ah ee uu leeyahay laakiin dadka dhaliila ayaa ku tilmaamay in sababta uu iibiyay saamiga faraha badan ay ahayd inuu iska yareeyo cashuur celinta xilligan sanadkan dhamaaday oo dawladdu ay la xisaabtamo aan ku sii wararka caalamiga cadaaladda boqortooyada Saudi Arabia waxa looga tabaaldegay baraf aad u weyn oo ka dhacay gobolka Tabuk
sida laga soo xiganayo dad ku dhaqan magaalada waqooyi galbeed dalkaasi Tabuk ayaa waxay arkeen baraf aad u badan waxaana la arkayay iyadoo baabuurta uu baraf dusha ka fuulay waana dhif iyo naadir in dalka Sacuudi Arabia oo kale lagu arko baraf dad ayaa intay maryo adag soo xidheen jilba joogsaday kuwa kalena waxay ku qabteen qofka ciyaar meesha waxayna u muuqdeen kuwa la yaaban aadna ugu riyaaqsan meesha oo aad u kulul mar walba in baraf ka da'o baabuurta ayaa la arkayay banaanka taltaalla oo uu baraf dusha ka qabsaday oo dusha ka sarsaaran yahay TV-ga al-akhbaariya ee dowladda Sacuudi Arabia ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay waxyaalaha marmarka qaarkood dhacday macduurka laakiin waxay intaas ku daray in buurta Alous loo yaqaanay u dhow Tabuka uu ka soo bilowday barafku dhowr jeer ayaa la hilaadiyay in dalalka reer galbeedka laga yaabo inay saxare isku bedelaan bedelka dalalka saxaraha ay noqon karaan kuwa baraf ah taasoo la sheegay inay bedeli doonto wax loogu yeeray dimensionka ama isbedelka dhinaca climate change waxyaalaha loo yaqaan cimilada isbedelaysa iyo waxyaalo kale oo dunida ka imaan kara sida loo dhigay dad ayaa waxa ay bilaabeen olole la doonayo in lagaga noqdo ra'iisul wasaarihii dalka Britain Tony Blair ee burburiyay dalalka Iraq iyo Afghanistan ka qayb qaatay in lagala noqdo markaasi bilada loo yaqaan knighthood ama waxa loo yaqaan musharafada bixisa haweeneyda dalkaasi 50,000 oo qof ayaa loo baahiyay inay saas sameeyaan durbaba waxaa saxeexay 47,000 oo qof dadkan ayaa sidoo kale waxay diideen inaysan soo dhaweyn doonin in ninkaasi uu la soo dego deegaanada ay ku dhaqan yihiin waxayna ku tilmaameen inaysan ogolayn in Tony Blair dib dambe loogu dhiibo loona ogolaado loona sharfo jaga markaasi loo dhiibo kadib markay ku tilmaameen inuu yahay nin been ka sheegay dagaalkii Iraq kadib markii uu sheegay in hubka sida daran wax u gumaada uu haystay Saddam Hussein kadib halkaasi uu ku laayay malaayiin qof ayay yiraahdeen oo waxba galabsan iyo sidoo kale tobanaan iyo boqolaal qof oo British oo dawladda u shaqeynayay bilaayin dollar oo lacagana uu ku khasiray Deborah Warford oo kamid ah dadka qoray markaas petition-ka waxa loo yaqaan ama ololaha ayaa Tony Blair waxay ku tilmaantay inuu mudan yahay in maxkamad la geeyo ma habayt in la sharfo kanoo kale oo la siiyo ayay tiri bilada sharafta waayo waxay tiri waa nin musuq oo fasahaadi waana nin ay tirgabi ahaanba benawaas dilaa oo gacmihiisa dhiig ka daayo isla markaana waa ninka kasbay dagaalkii 2003 lagu qabtay bili aadanku waa in waxyaalaha qaarkood iska ilaaliya oo kuwa dambiyada waaweyn leh ee lagu ku shaambadaysan bay tiri dilka musuqa iyo sidoo kale beenawaasnimada hogaamiyadeed waa in gacan bira lagu qabtaa Peter Aprilli oo kamid ah dadka soo doorasay arrinta ayaa waxa uu sheegay in uu yahay sharaf laawe dambi dagaal galay sida daraadeedna uu looga baahan yahay in laga badbaadiyo dalka oo dhan aanan loo dooran jaga dambe oo shaqaana loo dhiiban waxna aan lagu darsan dadka ayaa waxay ugu baaqeen haweeneyda dalkaas Elizabeth II inay si ugu saab badan uga xayuubiso ninkaasi sharafta ay ku timaantay dalka Iran waxa ay sheegeen inay si weyn uu dagaal uga dhacay deegaan dhinaca koonfureed ee dalka ah kaasoo la sheegay ciidamada lagu dhaatay dalkaas ka qayb galeen dagaalka ayaa lagu tilmaamay in kooxo Sunniyiina ay soo qaadeen kadibna sida wakaalada wararka Iran ay sheegayso waxay ku tilmaameen in dadkaasi ay isticmaaleen gabaad ka dhiganayeen dadka shacabka ee deegaanka si dagaal ka dhacay ku sugan maleeshiyaadka loo yaqaan Basij ayay ku tilmaameen inay si weyn u dagaalameen ciidanka ilaalada dalkaas ayaa sheegay 3 ay ka dhinteen halka 6 dadka maleeshiyaadkan ay dhinteen arrintaas waxay ka dhacday magaalada iyo gobolka dadka Sunniyiinta ay ku badan yihiin Sistan Baluchistan la yiraahdo oo u dhow xuduudda dalka Pakistan ay la leedahay Iran wararku waxay sheegayeen dagaalkaas oo saacado badan socday markii dambana ciidanka lagu dhaarto ee dalkaasi ay ka qayb qaateen kuwaas ugu dambeyntii dib u riixay ayaa la yiri kooxda weerar culus soo qaaday militariga ayaa sheegay in dagaalku uusan ahayn sidii filayay isla markaana uu ku adkaaday markii dambe halkan kala socotaan wararka caalamka dhacdada isla inteena qodobka ugu dambeeya kaga tagay nolosha qiimaha leh dalka Faransiiska ayaa wuxuu cambaareeyay gantaalihii ugu dambeeyay iyo gantaal noocii ugu dambeeyay ee xakameeda ee Iran ay dirto dowladda Faransiiska ayaa ku tilmaantay in uu ahaa arrintaas khatar aad u weyn oo muujinaysa in Iran kanshaw balaaran ay u leedahay inay dirto gantaalo qaadi kara hubka nuclearka oo space-ka gaari kara ayna ku dhaxqarinayso nidaamkeeda hubka nuclearka Mareykanka ayaa aaminsan in gantaalaha ay dowladda Iran ay ugu yeedho inay yihiin dayax gacmeedda hawada sare loo dirayo ay mar walba ku dhex jiraan waxyaalaha ay ugu yeedhay in ay qorshe kale hoose ku wadato oo gantaalihii ICBM ka noqon lahaa bedelkoodii laga dhigay rocket ama laga dhigay wax space satellite ka loo yaqaan waaxda dhinaca arrimaha dibadda ee dalkaas Faransiiska ayaa sheegtay in golaha ammaanka qaramada midoobay oo gorsii horeysay oo mamnuucay in Iran talaabooyin noocan qaado dhaqdhaqaaqyada noocan oo kala waa kuwo nasiib darro ah sidoo kalena waa kuwo laga shalaayo waxayna muujinayaan horumarka dhinaca
hubka nuclearka loogu jiro wadahadaladooda Vienna inay noqdaan kuwo bari furmay. Waxaan ugu wacnaa ama ugu yeedhinaa dowladda Iran inay joojiso isla markaana aysan dib dambe u qaadin gantaalo cusub oo nooca ballistic missiles iyo kuwa kale ee awoodda u leh qaadista gumciyada hubka nuclearka ayaa lagu yiri. Iran ayaa waxay u muuqataa barihii ugu dambeeyay oo dhan inay doonayso inay si hoos hawsheeda u wadato, waxaana dowladaha ay kamid tahay Israa'iil ay doonayaan inaan waqti dheeraad la siin. Israa'iil ayaa dhowr jeer sheegtay in ay dowladdaas ay haatan ay dagan tahay sida daraadeedna lagu joogsado ka hor inta aysan la banbixin dhibaatooyin hor leh. Intaan ku joojiyo daawashada qiimaha leh ee faafinta